habartii iyo Maryam baa barbar isu taagay qofba waxba u daranay waxay Maryam aad ula yaabanayd magaalada weynaanteeda nolol badnaanteeda baabuur badnaanteeda gaar ahaan kuwa yaryar ayaan weligeed horay u aragay meelaha dusmeynayay markii mid meelaan u dhoweyn soo maraba habartay inta dhanka kale ka marto qabsataa Maryam oo aad kirishbooyigi ugu ceel qabo ayaa waxay sii raacday habartii go'ii wali way huwanayd odaygiina mana ilaawin meel uu wax ka yiraahdana ma joogo iyadu waxay isaga qaadatay in lagu sadaqaystay in cada markay sii lugeynayeen bay taxi habartii la hadashay soo fuula ayaa taksiilihii yiri habartii baa inta albaabka hore iska furtay iyadoo waxba Maryam hagin waxna u tilmaamin iska fariisatay maadaama ay aad u daalanayd qof da joogtana ahayd taksiiluhuna waa warmoog Maryam waxay ka garanaysaa male baabuurtan dhadhabacsane dadku hulhulanayo horay waatay habarta isaga daba socotay mar alla markii habartii gashay oo yan wali xirin bay horta u holatay inay iyana baabuurka meesha habartu ka gashay ka gasho haddana garan weyday si loo galiyo iyo qaabkiisaba markii horay u holatay inay gasho bay horta lowga ku diirtay jambiga baabuurka waxa maskaxdeeda isku mar isugu yimid farqiga u dhaxeeya kay markaa ka soo degtay iyo kan Maryam iyadoo sidii u yaaban si ay wax tiraahdana garan la taksiiluhuna hoos ka haaraamayo oo isleeyahay naagta baasi maxay baabuurka u soo fuuli weysay ayaa habartii wax fahamtay oo inta sidii qof baraarugay kor u soo booday waxay tiri alla warinanta albaabka ka fur una sheeg siday u soo fuuli lahayd ma taqaan dhaqan magaaleedkan taksiilihii baa inta ka jan u qaatay si caadi ah albaabkii u furay isagoo aan riixin Maryam intay isku soo qaaday albaabkii laga sharqamiyay xaqiisii bay low ku sii qaaday ilaa uu haddana xirmay Maryam aragtay inay meel sharqamayaan hase yeeshee may ogeen irdahaasi meel furmaysa iyo meel xirmaysa intaba taksiilihii baa shakiyay oo isiri malaha waxa habartu sheegaysaa dhab ah wuxuu sii jaleecay Maryam mise iyadoo intii qof yaaban indhahana taagaysa bay iska soo taagan tahay intuu qoslay oo soo degay dhankay taagnaydna u soo wareegay buu ilidii furay inay fuushana u sheegay intuu isagii galay tusiyay sida inta loo galo loo fariisto Maryam markaasay iyadoon ka dhibaato la'ayn mar labaad madaxa soo gelisay aad bay u qajilaysay una baqaysay taksiilihii oo qosol socon la baa inta wareegay baabuurkii ka haystay meeshay rabeenna waa u sheegeen dhaqdhaqaaqa taksiga iyo raacistiisu waxay aad u cajabiyeen Maryam inda sarcaad baa u sii kordhayay marba marka ka dambaysa taksiilihii oo qaadan la qoftan xaalkeeda baa mar dambe cabaar la socday inta habartii jaleecay yiri sidani ma idinka dhabba mise anaad iga gadaysaan saa rabtid ka dhigo meelahaas noo jooji habartii baa tiri ka dhigtay gabadhan ma baran karaya waana iga dhabe ogsoonow maxaa yeelay weligeeba waxaan baadigoob ugu jiray qoftan oo kala ah taksiilihii oo qoslaya yiri waa leedinku yaqaan miskiin aad fayla goysaan dabadeedna markaad isku dartaan durfigeeda meelahaas isaga turtaane adoon waxba cidla ku xiiqin hool lacagtaada habartii oo ku dayaysa hadallada tiri Maryam iyada ninka baabuurka raaxada badan watay aad buu ula hanaansanaa xidxidashadiisana kamayba dayriseen sida niyadeeda ku badan walowba hadallada kulule habartu u dhiibtay dhiila galiyeen baabuurkii baa laga degay Maryam sidii iyo ka daran baa dhibi ka raacday degidiina meeshay ku socdeen aad ugu dhaweyd bay u sii talaabsadeen wuxuu ahaa guri habarta saaxiibteed leedahay oo magaalada kaga soo degto iriday ka soo galayeen ba ma ahee waa laga hor yimid habartii garwadeenka ahayd baa habar kale albaabka furtay ku soo booday alla waa saaxiibtay Xaliimo iska waran alla ma ku nabad keenay nabad Faaduma ee balidinkana iska warrama Xaliimo oo daalan siina gudbaysaa tiri waa nabad iyo ladnaane soo gudba Faaduma tiri Maryam iyadu cid salaantay ma jirin meeshii loo nuuxsadaba habar Xaliimay iska daba galaysaa welina waxa aad ugu weyn baqdintii fajici iyo qaladay xamar ka qaaday sidii wax didsan bayna u boodboodaysay waa la fariistay sheeba loo kariyay cunto kale loo diyaariyana hurday ka doorbidayeen oo gabadhan yaa inoo dhalay ilaa inagu waa isnaqaano waligeen wax ma aynu dhaline Faaduma ayaa tiri
gabadha cidda shayba la dhal caawasa inagay magan inoo tahay ogsoonow xaliimaa tiri haa ku gartay waa gabar xamar u soo xiistay dariiqaadna isku soo barateen sida muuqata faadumo qoslaysaa tiri haa الله وحنا تراها نواين قبضنا مريم باليرادا وأنا قفت دجديد قروح لألا أولري ولما يقدرتها قبرني ماذا رنت الدبيع جاء وهذا وهو إن قفتني قبرني ماذا سداد أذقوه هي ستدي تهاي فاضما تري سداوي مقف وحي ينهبين كهذا قدام كوراك هاي وابس إتقانه واسده حليمة تري مريم halka waxay ka heshay fikrad iyada gacan siin karaysa awalba way iska maleynaysay in xamar ahayd meel ka heer sareysa meelaha kale iyada se waxa wax kasta kaga meelay waxay mari doonto iyo sida arinteedu isugu soo luga duwan doonto aragtay in habrahan yihiin kuwa inta daa jooga gablan ah booyaalow may adigaba ku dhalaan oo ilma ka dhigtaan bay iskula hadashay iyadu may hadalada habraha bay dhuuxaysay faaduma aad u danaysay faanka maryan la faaniyay inkastoo yan si hadalla hoos bay iska tusaysay danayntaasi hadalkiiba inta caadiga ahaa xirmay la wada seexday maryan oo wali go'ay ku duuduuban baa meel salli loo dhigay habrihiina sariira lagu kala seexday maryan kamay deerinayne way mahadinaysay salliga shamiitada yaale aan birkinta lahayn dhagba hurdo iyo daal la yiri waagi baa bariyay koor intaan islaamihii kicin ayaa maryan kacday iyada u adkeysan weysay dhawaaqii iyo gariirkii dheeraadka ahaaye magaaladu markay toostay bilowday meelay aado iyo waxay qabatay garan weysay inkastoo kacday hurdadiina ka bardaday meesheedii bay iska luqma laabnaatay iyadoo isha guluc ka siinaysa ilaa habartii guriga lahayd inta toostay sara kacday oo inta dibadda u baxday inaan u shaqeynaysay iyadu kol hore quraac samaysay jikadana dhex fadhisa u tagtay kuna tiri laba qof quraacdood degdeg u samee dib ayay isaga soo laabatay markay hadalkii u sheegtay waa la wada kaagacay quraacdii baa loo soo wada fariistay intii la cunayay baa si fiican la isu wada eegay habartii guriga lahayd waxa ku sii weynaaday maryan quruxdeeda inkastoo si ahayd bushintay hoos uga qaniintay xaliimo oo iyadu ah qof mushtaraho rabta inay inta degdeg wax u iibsato laabato baa mar alla markay quraacdii cuntay inay baxdo isugu alaab duwatay waxay istustay inay maryan ciidan ahaan u kaxaysato haddana badownimadeedii bay xasuusatay ilaa ay kaba baqday oo istir armayba kugu dhimataa baaburina meelahaas ku jirta inay meesheeda uga tagtay goosatay iyadoo boorsadeedii gacanta ku sidata dhaqaaqna u taagan bay tiri faadumo anigu meelihii wax lagu iibin jiray baan soo marmarayaa waana soo qada doonanayaa inanta ha sii joogto qadada hadaad kowda i weydaan iska qadeeya naadna reerka la sii shaqee faadumo aad ugu faraxday inanta loo cileeyay dan weyna kaba lahayd baa sidii qof wuxuu rabay si sahlan u helay inta kor u booday tiri haa waayahay xaliimo aniga naftayda mar dhow inaan baxo u baahan حليمة يريد كسي بودي ماشينا وحا اسقو سو هري فاطمه مريم iyo inantii kale adeegaysay faaduma oo sugu leeyd firaaqaday maryan u helayso si ay indhaha uga xanjeyso baa waxba ma kaadsane hadal u soo faarumaysatay oo tiri haye inanta cusub ee xamar maanta u yahay meel hor leh bal ii waran maryan magacaagu soo ma aha ha eedo maryan oo si uba baqaysa tiri oo waxaan ku weydiiyay waliga maanta ka hor wax xamar ma aadan iman miya faaduma bala iska dhigaysa ayaa weydiisay ma yeedo waligay maanta ka hor wax xamar ma iman dhagta baan ka maqli jiray maryam baa ku jawaab celisay الله كمجن وحن كحومه إن فرصة أدوين لمسي وحبس ماله هدد جذلك سوجرتي فأظلمه مركي أنت أتري بيمسخش أدي يده هذا الكي أفريه ماشي إنه يكودنا رفته goobta waxa joogtay inantii kale Faaduma u adeegaysay eedana ay u ahayd inantu waxay fahamtay dabinka eedadeed Faaduma daadinayso iyo dantay ka leedahay dhanka kale waxay ka maseersaneed tan baase ku soo korodhay meesha gabadha sagal baa la yiraahdaa waana mid fariida habartu intay maqneyd bay Maryan hoos warbixin kooban oo digniina uga dhiibtay naamaqal waxaan filayaa inaad garan karaysid duruucda sheekada iyo waxa lagu koolkoolinayo hadalkii oo dhan ilaali ana runta faraha ka saaraya waxaan kaaga doonayo male oo tani
aniga waa eedaday aabahay la dhalatay ha yeeshee waa afbinshaarad kabihii nabiga cuntay waxaan ku noolahay waa dabaqaad iyo been sagal oo si u baqaysaa tiri faaduma soo gashay sagaloo maryan ku haysata maryan oo indhihii soo baxeen dhiila xumina wareentay waxay ku dhaweyd inay cagaha wax ka daydo dambaas celinaysa awal qof faraxsano wixii la weydiiyo u dhug leh bay ahayd faaduma waxay u timid qoftii oo waji kale iyo muuqaal kale leh sina uba salkacsan faadumo waxbay tuhumtay masagaran in sagal cirbad maryan ku durtay sagal intay hoos maryan uga iljabisay bay iska baxday faadumo meeshay awal fadhisay bay soo fariisatay iyadoo hadal maagan iyo inay maryan tubta ku soo rido waxayna tiri maryan waxaan ku weydiiyay eed dhar miyaadan sidan maye intaan qabo waxaan ahayn oo dhara mabalihi laakiin intan baan ku iimaan qabaa maryan oo indhuhu dibadda yihiin baa ku jawaabtay faaduma intay kacday oo armaajo ku dhaweyd furtay bay guntiinooyin aad qafiif u ka buuxay soo cantoobisay waxayna ku soo sayrtay maryan dhabteeda waxaad rabtid ka xulo iska bedel calalada xun ee uskaga badan naasagal bal dacas la kaalay ama iska badaa halkana kuwa cusub yaaliine iyadoo ifaan ka tahay faaduma tiri meelan ka dheereen bay soo jiiday mise maxaa dacasa maryan cagteeda la eegay kuway u maleenaysay inay la egyihiin bay soo dhufatay oo u soo tuurtay maryan awal cagacadaan waxba ma dhaamin dharkii lagu soo tuuray baraafuunku ka soo haadaya wax kala ahaa wali far uma fidin inkastuu dhabteeda saaraa dacaskii sidoo kale harag waraaba alla u tuuray qof sidii maanta oo dhan ordaysay ama shaqo aad u adag hayay bay neeftuur ka bixi weysay naxdin iyo baqdin darteed maryan iyada qof aan waaye arag ahayn horay ka fahmi lahayd shaqada gurigaasi u furnaa kadib markay aragto guntiinooyinka iyo dacaska tirada ka batay haddana aan dadkoodii loo jeedin maryan oo far u fidin la waxyaalaha la siiyeyna inta ka wiswistay taabashadoodaba ka cabsanaysa baa faaduma aragtay qaadanna weysay xaajadaas mudday u sugtay mise nuuxsiba ha sheegin faaduma madaxay inta ruxday oo qamoonyootay tiri allow doqon ha naga dhigin war waa lax daaqdaan u malaynayaa mise qalal bay qabtaa faaduma inta soo kacday bay maryan kor timid madaxay ka taabatay maryan baa naxday oo in la dilayo u malaysay sidii bahal ku soo socdana isu adkaysay aragtay maryan inaan dilidi jirin ha yeeshee jees jiro waa samidan iyada waxba ka dhimayn intiiba waxaa soo galay dhowr gabdhood oo isjajabinaya dharka la qabo sida loo labisan yahay boorsooyinka sidooyinka dheer aad u yaryar la lalminayo iyo carabada la lulayaa waaba wax kale waxay dalaq u soo yiraahdeen goobtii maryan iyo faaduma joogeen salaan iyo haahaah been ahee aad u jeedid baa bilowday sagal baa hoos ka soo dustay oo inta maryan meelaan eedadeed ka arkeen iska tustay u iljabisay afmaroojis iyo gacmahana tilmaamo ku siisay maryan way fahamtay waxay tahay walowba ayan weli sii ogaan intay dhan isaga rogtay dharkii dusha ka saaraa go'ay huwanaydna isku sii hadoodishay bay sagal xaggeedii aaday iyadoo ka baydadsan colka meesha yimid iyo camaaryaleyda sunteeda sagal oo awaloo dhanba awaalaysay inay marun u soo baxdo baa inta garabka qabatay jikadii la gashay laba goobood baa loo kala jabay maryan iyo sagal iyo faaduma iyo kooxdii cusbayd sagal oo iyadu inkastay qofaan sidaa u da'weyneyn ahayd garasho sale arrinta meesha taalna xogoogaal u ah baa maryan inta ka haysatay aad ugu qaadaa dhigtay waxa meesha lagu hayo naa'im maqal ma rabtay inaad har iyo habeen niman qaad iyo qamra daaqaya kugu durduriyaan mise rabtay inaad sidan si ka duwan u noolaatid haddaad rabtid waa inaad inta nala degtid nala noolaatid haddaadse nolol noocaas ka duwan doonaysid hadda isla maantaba isaga dhoof goob baastan sagal baa waanisay maryan alla walaalay adoo mahadsan waxaan kuu sheegayaa inaan anigu xalay magaaladaba soo galay oonan waxba ka garanayn nolosha lagaga nool yahay carrigan horeyna aanan u ahayn qof ama hanti u lahayd ama aqoon anoo si doora kuugu mahdinaya waanada wacana isiisay haddana bal wax indhaindhayo sidee baan waxyeelaa waxaan kuu hubinayaa inaanan doonayn noloshan maryan oo cabsi iyo yaab isu qabteen baa tiri anigu meelaan kuu tilmaami karayaa ma jirto hadalkaana waxaa iga keenay xumaanta aan halkan ku arkay iyo anoo isiri qoftani waa miskiin aan lugooyada intaa la qaadi karayn allana bal u kaadi reer daris nala ah
waa shalay gabar u adeegta doonaye alla ilaahay aan soo fiirsho bal ina keen aan soo eegne sagal baa inta tiri istaagtay kor baa isku mar loo wada booday waxbana lama sugine waxa toos loo aaday reerkii gurigii baa la tagay oo la garaacay habar daah baa ka furtay oo tiri haye maxaa daraa oo aad doonayseen eeda nabad cidii gabadha ciidanka ah doonaysay soo idinka ma ahayn habartii baa inta faraxday tiri ha maandhe ma ciidan baad haysaan ma idinka raba inaad shaqaysaan sagal gudba maandhooyin habartii baa tiri waa cidlo oo ninkii iyo naagtiisaba shaqay aadeen anoo sidaad ii jeedaan qofta cadka ah baa iska dhex jooga ninka hooyadii baan ahay shaqo waa la idin siinayaa xataa haddaad labadiinuba rabtaan ma mid baa rabta mise labadiinuba mid naga mid ah baa rabta haddii taasi idiin bogto asaad qof u baahataan waanu idiin wada shaqayn doonaa sagal baa tiri haa gartay haddaba waxaad yeelaysaan haddaad rabtaanna waad ila joogaysaan ilaa ninkii guriga lahaa yimaado haddii kaloo wax hawla aad leedihiinna duhurkii baad inoo imanaysaan habartii oo aad ugu faraxsan imaatinka ciidankaa tiri maryan iyo sagal baa is eegay madaxa la isla nuuxshay maryan baa tiri maxaan yeelaa waa maxay adigu waad joogaysaa anna waan tagayaa sagal baa tiri waa yahay walaal laakiin hal ogsoonow inaad goor walba iga soo warqabtid aniguba se waan garanayaa gurigiina inkastoo maryan oo aad ugu faraxsan baa tiri taa aniga igu duub nabadayna eedda gabadhaas baan idiin reebnaye noo hagaajiya hadday hagaagto anna waan idiin imanayaaye ogsoonow sagal baa inta tiri baxday meeshii baa waxaa isugu soo haray habartii iyo maryan oo aad u faraxsan iyadoon waxba hadal bilaabin baa waxaa soo noqotay sagal oo tiri maryan kaalay bal maryan baa u timid waxbana may hadline iyadoo waxay oran doonta dhagta la sugaysay is agtaagtay maqal lacagtayaan lagugu gabrine si hadhow haddaad is afgaran weydaan aad ayaamo u noolaan kartid amaad nooliba u heshid waa inaad ka digtoonaataa sagal baa tiri maryan baa inta madaxa ruxday aad ugu riyaaqday waanada iyo wanaagga inanta yara meel looga soo diray aan la garanayn sagalna iyadoo isneefinaysa guulahay gaartay dartoodna u muuqata qof faraxsan oo ku faanaysa bay maryan garabka inta ka sii dharbaaxday horay u sii dhaqaaqday maryan baa inta ku soo booday sagal gacantana soo qabatay tiri alla walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaanan kaa codsanayaa inaynu iska warqabno had iyo goorba anigu kolley abaalkaad ii gashay ma gudi karayo horaa loo yiri qof abaal gala waa la arkaa qof gudaasa lama arko waxaan saakay ogaaday in garashada iyo xilkasnimadu ayan ku xirayn da'weynida ee loo kala dhasho taasna waxaa tusaale habboon u ah farqiga adiga inta leeg iyo eedadaada 20 jeer ku dhali karta u dhaxeeya waxbase yaanan ku daahine waa inoo sida iyo is arag dambo joogto ah iyo abbaaya nabaday